injiilka sida Markos u qoray cutubka 15 aroortii kolkiiba wadaadadii sare waxay la wada hadleen waayeeladii iyo culimadii iyo shirkii oo dhan ciisana way xidheen oo kaxeeyeen oo waxay u dhiibeen Bilaatos wuxuu weydiiyey ma boqorka Yuhuudda tahay wuu jawaabay oo ku yidhi waa tidhi markaasaa wadaadadii sare wax badan ku ashkateeyeen Bilaatos baa kol dambe wax weydiiyey isagoo leh miyaanad waxba ka jawaabayn bal eeg intii ay kugu ashkateynayaan laakiin ciise weli waxba ugama jawaabin sidaa darteed Bilaatos waa la yaabay iidaas wuxuu iyaga u sii dayn jiray maxbuuskay doonayeen markaasaa waxaa jiray nin Baarabas loodhan jiray oo ahaa mid lala xidhay kuwii kula kacay oo wax dilay markii fidmadu dhacday dadkii badnaa ayaa Bilaatos u kacay oo bilaabay inay doonaan inuu u sameeyo siduu u samayn jiray Bilaatos baa u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad doonaysaan inaan idiin sii daayo boqorka Yuhuudda waayo wuxuu ogaa wadaadadii sare inay xaasidnimo ugu soo dhiibeen laakiin wadaadadii sare ayaa dadka kiciyey oo waxay yidhaahdeen inay u roon tahay inuu Baarabas u sii daayo iyaga Bilaatos baa mar kale u jawaabay oo ku yidhi haddaba maxaad doonaysaan inaan ku sameeyo kan aad ugu yeedhaan boqorka Yuhuudda iyagu mar kale ayay ku qayliyeen isku tallaabta ku qodob markaasaa Bilaatos ku yidhi waa maxay sharku falay laakiin aad bay u sii qayliyeen oo yidhaahdeen isku tallaabta ku qodob Bilaatos wuxuu doonayay inuu sameeyo waxa dadku raalli ka yahay sidaa darteed ayuu Baarabas u sii daayey oo goortuu Ciise karbaashay ayuu u dhiibay in isku tallaabta lagu qodbo markaasaa askartii isaga geeyeen barxaddii dhexdeeda taasoo la odhan jiray Baraytoriyon waxayna isugu yeedheen askartii oo dhan waxay u geliyeen dhar guduudan oo taaj ayay qodax uga taxeen oo madaxiisay saareen markaasay salaameen oo waxay ku yidhaahdeen nabad boqorka Yuhuuddow madaxana ayay caws duur kaga dhufteen oo wayna ku candhuufeen oo u jilba joogsadeen oo u sujuudeen goortay ku majaajiloodeen dabadeed ayay dharkii guduudnaa ka qaadeen oo dharkiisii bay u geliyeen markaasay wadeen in isku tallaabta lagu qodbo waxaa ag mareeyey nin beeraha ka yimi oo reer Kuranaayo ah oo Simoon loo odhan jiray oo ahaa aabbihii Alexanderos iyo Rufus kanay ku qasbeen inuu isku tallaabtiisa u qaado oo waxay u sii wadeen meel Golgota loo odhan jiray taasoo macnaheedu yahay meeshii dhakada waxay siiyeen inuu cabbo khamri xameeti lagu daray laakiin ma uu qaadan oo goortay isku tallaabta ku qodbeen dharkiisay qaybsadeen wayna u saami riteen mid kasta wuxuu qaadan lahaa waxayna ahayd saacaddii saddexaad oo isku tallaabta ay ku qodbeen waxaa lagu qoray meel ka koraysa isaga qorniinka ashkatadiisii oo leh boqorka Yuhuudda markaasaa waxaa isku tallaabo lagula qodbay laba tuug mid midigtiisa midna bidixdiisa oo waxaa rumoobay qorniinkii yidhi waxaa isaga lagu tiriyey sharci laawayaasha oo kuwii ag marayeyna waa caayeen oo intay madaxooda luleen waxay yidhaahdeen kaaga macbudka duminayow oo 3 maalmood ku dhisayow isbadbaadi oo isku tallaabta ka soo deg sidaas oo kalena ayaa wadaadada sare dhexdooda ugu majaajiloodeen iyaga iyo culimada oo waxay yidhaahdeen kuwo kale ayuu badbaadiyey qudhiisu isma badbaadin karo masiixa oo ah boqorka Israa'iil haddeer isku tallaabta ka soo dego si aan u aragno oo u rumaysano kuwii isku tallaabaha lagula qodbay ayaa caay goortii saacaddii 6 la gaaray dhulka oo dhammu gudcur buu ahaa ilaa saacaddii 9 saacaddii 9 Ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi Eloi Eloi lama sabaqtani taasoo macnaheedu yahay Ilaahow Ilaahow maxaad ii dayrsay kuwa ag taagnaa qaarkood ayaa goortay maqlay yidhi eeg wuxuu u yeedhayaa Eliyaas mid baa orday oo geed isboonji la yidhaahdo khal uga soo buuxshay oo intuu caws duur saaray ayuu siiyey inuu cabbo wuxuuna yidhi
daaya aanu aragnee inuu eliyaas u yimaado oo soo dejiyo markaasaa ciise cod weyn ku dhawaaqay oo ruuxii bixiyey markaasaa daahii macbudka kor ilaa hoos laba u kala dilaacay kolkaasaa boqolutaliyihii oo meel ku toosan taagnaa markuu arkay inuu sidaas ruuxiisii u baxshay ayuu wuxuu yidhi runtii ninkani wuxuu ahaa wiilkii ilaah waxaana joogay dumar meel fog ka eegayey oo waxaa ku dhex jirtay maryan tii reer magdala iyo maryan oo ahayd yacquub yare iyo yoose hooyadood iyo saloome oo ah kuwa xataa intuu galili joogay raaci jiray oo u adeegi jiray iyo qaar kale oo badan oo yeruusaalem u sii raacay haddaba waxay ahayd maalintii diyaar garayska taasoo ah maalinta sabtida ka horraysa oo markii maqribkii la gaadhay waxaa yimid yuusuf kii reer arimataaya oo ahaa taliye murwad leh oo isna boqortooyada ilaah ayuu sugayey isagu wuxuu dhiiranaan ugu galay bilaatus oo ka baryay ciise maydkiisii bilaatus waa yaabay inuu hadda dhintay markaasuu wuxuu u yeedhay boqortaliyihii oo weydiiyey durba miyuu dhintay goortuu ka gartay boqortaliyihii ayuu maydkii yuusuf siiyey markaasaa yuusuf wuxuu soo iibsaday kafan wuuna soo dejiyey isaga oo kafantii ku duuduubay oo wuxuu geliyey xabaal dhagax ka qodnayd oo xabaashii afkeeda wuxuu ku soo giraangeliyey dhagax weyn maryantii reer magdala iyo maryan oo ahayd hooyadii yoose waxay arkeen meeshii la dhigay